السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وليد أيان آي waxaan u soo laabtay inaan idin dhammaystiro sheekadeyda marka aan yumna furay gurigana ka buuriyey. marka hore aad ayaan ugu murgay waxa aan sameeyey si daranna waan ugu xiisay, laakiin marka aan soo xasuusto hooyadii wax ay ku samaysay aad ayaan ugu xanaaqa, mana rabo inaan arko. arrintaasna waxay sababtay muddo 2 bil ah inaan arkin. waxa aan la yaabay marka ay hooyo igu dhahday maxaad waraaqadeeda u siin weyday, maxaad sugaysaa? waxaan ku dhaartay inaan furaayo waraaqadeedana siinayo, laakiin ma awoodo inaan si toos ah u furo kana fogaado. maalintaas laga bilaabo shaqada maysan imaan. shaqada ma ka tagtay mise fasax ayay ka qaadatay kama warhaayo. maalinta ku xigtay shaqada marka aan gaaray ayaa sekreteeriyadda igu dhahday qof ayaa bannaanka ku fadhiyo inuu hadda kula kulmo ayuu rabaa. yaa waayo ayaan ku dhahay. ma aqaana ayay iigu dhahday. haye ii soo fasax ayaan ku dhahay. waxa uu ahaa Yumna aabbaheeda. wuxuu igu dhahay ma u imaanin inaan ku weydiiyo maxaad gabadheeda u soo burisay, mana kaaga sheekeynayo si ay horteena u istaagto si uu u guurso shakhsi noocaga oo kale ah. maadaama aad rabto inaad furto si toos ah u fur waraaqadeedana soo sii. waxaan ku dhahay wax yar fadhiisa aan wada hadalne. wuxuu igu dhahay gabadheeda haddii aadan xumayn lahayn waan kula hadli lahaa, laakiin hadal ma naga dhexeeyo. gabadheeda waraaqadeeda ayay rabtaa. arrintan way dhammaatay. inta uusan bixin kahor wuxuu igu dhahay ogow waqti badan kuma siinin. marka uu baxay kadib waxaan ka fikirayay talow yaa qaldan. Yumna waa qof aad u fiican, markastana hooyaday way wanaajin jirtay. hooyana markasta danteeda ayay ka shaqayn jirtay. wax badanna way ii soo dadaashay. anoo sidaas u fikirayay ayaa talka ii soo dhacay. hooyo ayay ahayd. waxay igu dhahday habaryartaada ayaa soo socoto, inay ku aragta ayay rabtaa, soo dhaqso. haye ayaan ku dhahay. talkana waan xiray. 2 saac ka hor ayaan shaqada ka tegay si aan ciyoob guriga u aado. guriga ayaan gaaray. waxaan arkay habaryar iyo gabadheeda iyo hooyaday oo isla fadhiya oo aadna u faraxsan. waan salaamay waxaana ku dhahay dharka ayaan iska soo bedelayaa. hooyo ayaa iigu dhahday cunto inoo dalab. waan la yaabay marka ay Yumna cunto bannaanka ka dalbi jirtay. hooyo waxa ay igu dhihi jirtay xaaskaaga inay ku khasaarisa ayay rabtaa, laakiin hadda maxaa isbedelay? ugu dambayn waan ku waafaqay, waayo marti ayaa noo joogtaa. marka aan bilaabnay cunto cunista ayaa habaryar iigu dhahday ma rabtid miyaa inaad guursato? mayo ayaan ku dhahay. waxa ay iigu dhahday wiil yar ayaa tahay. inta aanan u jawaabin ayaa hooyo dhahday haa wuu guursanayaa, waayo midii hore waa ay wareerisay. waxaan ku dhahay maya, arrinta sidaa mooda maahan. xaqiiqda haddii aan kuu sheego weli si rasmi ah uma furin, waa xaaskayga. hooyo ayaa iigu dhahday maxaad u furi weyday? waxaan ku dhahay weli go'aan kama gaarin. dhammaantooda hadalka waa ka soo bixi waayey. waan fahmi waayey sababta. marka ay baxeen ayaa hooyo iigu dhahday ha igu dhihin weli ayada ayaan jeclahay. ma aragtid miyaa habaryartaa gabadheeda aad ayay u qurux badan tahay, hantidaadana ma damcayso. markaas ayaan fahmay hooyo ujeedadeeda, laakiin hadalkeeda waxba kama soo qaadin. markasta waxay igu celcelin jirtay gabadha habaryartaada guurso, way qurux badan tahay. anna mawduucaas oo dhan ma kala hadli jirin. maalin ayay iigu dhahday gabadha habaryartaada way xanuunsan tahay, inaad iraacda ayaan rabaa. waxaan ku dhahay waqti mahaayo. waxay igu dhahday sida aad moodo maahan ee way xanuunsan tahay ayaan ku dhahay. hay ayaan ku dhahay. marka aan meesha gaarnay gabadhii way caafimaad qabtay, mana aysan xanuunsanayn. waxay bilowday in ay nolosheeda iiga sheekayso. anna hadalka ayaan u ajiibayay. talka ayay qabsatay. muddo 10 daqiiqo ah ayay haysatay. sikadisa ayaa cod loo soo diray ay u furtay. waxaana lagu dhahay haddaad asiga guursato adna hantiile ayaad noqonaysaa. way isoo fiirisay, weliba ayadoo wejigeeda isbedelay. waxaan iska dhigay inaan waxba maqlin oo kale. hooyadeed ayaa u wacday. telka meesha ayay ugu tagtay, weliba asoo furan. telka ayaan soo qabsaday. waxaana rabay inaan ogaado wax kasta oo iga qarsoon. waxaan arkay qoraallo wada sheekaysi ah ayadoo dhahaysa marka uu i guursado hooyadiisa ayaan ku khasbayaa inuu naga fogeeyo, in ay nala noolaato ma rabo. anna wax kasta aan rabo ayuu ii iibinayaa. inta aan ku qeyliyey ayaa ayaga dhammaantooda u wacay. waxaana ku dhahay midaan maa rabtin inaad ii guurisaan. hooy ayaan ku dhahay waxa ay rabtaa marka aan guursado in ay adiga kaa takhallusto oo aan bannaanka kuu tuuro. hooyo aad ayay u naxday. waxayna ku dhahday maxaad sidaas u samaynaysaa? maxaan kaa haleeyey? aniga iyo hooyaday gurigaas waan ka soo tagnay. marka aan gurigeena imaanay ayaa hooyo ayadoo oynaysa igu dhahday wiilkaygiyow arrin ayaan rabaa inaan kuu sheego. waxaan ku dhahay hooyo maxaa kugu dhacay? waxay igu dhahday xaaskaaga aniga ayaa dulmiyey. waxaana rabay inaad ayada furto aadna guursato gabadha habaryartaada. habaryartaada ayaa wax kasta ka dambaysay. Yumna waa gabar aad u wanaagsan, ebedkeedana ima xumayn. marka ugu dambaysayna aniga ayaa dharbaaxay, ayadana waa iska keesikisay. marka aan codkaaga maqlay ayaa dhulka isku tuuray, aana ooyey. wax walba sidaas ayay ku dhaceen. aad ayaan ugu naxay hadalkeeda. waxaana ku dhahay makula fiican tahay wiilkaaga reerkiisa inaad burburiso, xaaskaygana qof xun ku tilmaanto ayadoo waxba kaa galabsan. maxaa u ooynaysaa? oohintaada maxay ii taraysaa? hadda
xaaskayga may ii soo celinaysaa. Hooyo ayaan guriga kaga tegay muddo 2 maalin ah. xafiiskayga ayaan seexanayay. 2 maalin kadib waxaan go'aansaday inaan guriga aado si aan dhar ugu soo qaato kadibna xafiiska ugu soo laabto. laakiin waxaanba arkay xaaskayga oo guriga ku soo laabatay oo hooyaday la fadhiso. waan yaabay, laakiin hooyo ayaa wax walba ii caddaysay. waxayna igu dhahday Yumna aabaheeda ayaan u tagay, waan kaaga soo cudur daaray, wax walbana sida ay u dhaceen ayaan u soo sheegay. Yumnana waan fahansiiyey wax walba. xaaskayga sidaas ayay iigu soo laabatay. hooyana mar kale arrin kale ma sameynin ee Yumna ayay howsha guriga ka saacidi jirtay. markaas ayaan ogaaday qofkii qofka la arrin u maleega inay asiga ku soo laabanayso. intaas ayay ku egtahay sheekadeena. fadlan haddii channelka aad ku cusub tahay waxaan kaa codsanaynaa like, share iyo subscribe inaad noo dhahdo.